jariirada Daily Mail ee ka soo baxda wadanka Ingiriiska ayaa qortay in dhaqaatiir ay ka soo saareen 33 gobol oo bir ah caloosha wiil dhalinyaro ah. Biraha calooshiisa laga soo saaray waxaa ka mid ah qalabka timajaraha, sakiino iyo waliba biinso. Kadib markii uu ka sheegtay xanuun daran oo dhanka caloosha ka soo wajahay. Warbixinada la helay ayaa sheegaya in Yagush Thakur in bacal lagu arkay calooshiisa kadib markii isbitaalka la geeyay oo raajo dhanka caloosha la saaray. Hooyada dhashay wiilkan dhalinyarada ah oo 30 sano jirka ah ayaa dhaqaatiirta MBN ee Tashataabuur ee gudaha wadanka Hindiya u sheegtay in wiilkeedu uu afka uu ku rito wax kasta oo gacantiisa soo gala. Sidoo kale waxay sheegtay inay lama filaan ay ku noqotay markii ay ogaadeen in wiilkoodu uu laqi karo waxyaabaha khatarta badan. Thakur ayaa waxa lagu sameeyay qaliin kadib markii la ogaaday in bira khatar badan ay calooshiisa ay ku jiraan, isla markaasna waxa loo fidiyay talooyin nafsi ah si uu naftiisa uga ilaaliyo cunista waxyaabaha khatarta badan. Dhaqaatiirtu waxay aaminsan yihiin in ninkan dhalinyarada ah oo amateedku uu ka wareeray, waxayna yiraahdeen qofka sidaan oo kala wuxuu awoodaa una laqi karaa waxyaabaha afka leh ee khatarta badan. Waa sida ay qortay jariirada Daily Mail. Dhaqaatiirtu sidoo kale waxay yiraahdeen xaaladiisa aqliyan ma fadhiso, waxayna dhaliilayaan habka uu u fakaro oo waxay leeyihiin wax badan ayaa qaldan. Sida laga soo xiganayay dhakhtarkii qaliinka sameeyay, waxa lama filaan ku noqotay markii birahaasi oo dhan uu ka soo saaray caloosha wiilka dhalinyarada ah oo qaliinka uu ku sameeyay. Dalmar Cabduqaadir.